maalinimadii talaadada ahayd bishana ay ku beegnayd 31 bisha koowaad ayaa waxaa magaalada Helsinki xarunta Sanamotalo lagu qabtay dood ku saabsan labada musharax ee iyagu u taagan xilka madaxweynenimada waddanka Finland oo iyagu ka kala socda xisbiyada cagaarka iyo xisbiga Beka Haavisto isagu ka socda xisbiga cagaaran iyo Soile Niinisto isagu ka socda xisbiga garabka midig ee luqadda Finishka lagu yiraahdo Kokoomus. Doodaasi waxa ay ku saabsanayd codbixintii ugu dambeysay iyagu fursad loo siiyay in ay dadweynaha gaarsiiyaan fikirkooda ay aaminsan yihiin ama ay ku soo kordhin karaan dalka Finland. waxaana halkaasi ka dhacday dood ay qof walba uu ku soo bandhigayo wax qabadkiisa ama xisbi ahaan waxa ay aaminsan yihiin. dadku aad ayuu u farabadnaa daawanayay iyagoo ay qayb ka ahaayeen qayb ka mid ah jaalida Soomaalida ee Finland. Maxamed Maxamuud Caalin oo isagu dadka iyagu markaasi u loolama xisbiga garabka midig ee Kokoomus ayaa salaan sharaf ka gudoomay ninka lagu magacaabo Niinisto oo shakhsiga haatan isagu u taagan in uu noqdo madaxweynaha dalka iyadoo uu qayb ka ahaa dadkii halkaasi isugu yimid. madaxweynaha haatan xilkeedu uu dhamaaday madaxweyne Tarja Halonen oo qof dumar ayaa waxa ay talada waddanka ay gacanta ku haysay muddo gaaraysa 12 sano sida uu dhigayo sharciga dalka Finland. waxa uu xaq u leeyahay qofku inuu isu soo sharaxo 6 sano mar ayaa la galaa doorasho ku saabsan madaxtinimada dalka Finland. aan iraade waxaana madaxweynahaasi ay ahayd madaxweyne nasiib u yeeshay in talada dalka Finland ay gacanta ku hayso muddo 12 sano iyadoo sharciga Finland uu dhigayo inaanu qofku mar labaad isku soo sharaxi karin mar haddii uu bixiyo shuruudihii looga baahnaa ee ahaa in qofku uu hayo 12 sano uusan dibna isu soo sharaxi karin. xasuus mudan sanadkii tegay in ay isu soo sharaxeen siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ka koobnaa 7 qofood kuwaas oo iyagu ka mid ah xisbiyada siyaasadda waddanka u loolama waxaana ay isku dayeen inay ka mid noqdaan doorashada looga mid noqdo baarlamaanka waddanka Finland balse ma aysan suurtoobin oo waxa ay qof walba uusan helin xilkii amaba dibcihii looga baahnaa. aan iraahde ma aysan helin kuraastii looga baahnaa ee ay ku buuxin lahaayeen inay kaga mid noqdaan baarlamaanka waddanka Finland. halka warkaasi uu idinkaga imaanaya waa National TV anigoo Maxamed Bashiir Maxamed Info Helsinki Finland.